بسم الله الرحمن الرحيم. عشركا waxaan ku baran doonaa sida loo isticmaalo copy and paste. Waa maxay copy and paste? Copy and paste waa qoraalkaaga qayb kamid ah ama qoraalka oo idil inaad koobiyeysid isla markaana aan meel kale dhigato oo badsato macnaheed. Qoraalkan hadda tusaalahan sadarkan ayaa rabaa inaan koobiyeeyo oo sadar lamid ah inaan sameeyo oo halkaan soo dhigto. Haddaba qaabka u sameeynaya waxa sameeynaysaa marka ugu horeysa sadarka arabtid ama qoraalka qayb kamid ah arabtid inaad koobiyeysid ayaad select saaranaysaa. Hadda sadarkaas dhan ayaan waxaan rabaa inaan koobiyeeyo oo halkaan sadar lamid ah inaan soo dhigo. Marka aad qoraalka saan select u saarto ayaa waxaan tagi doonaa qaybta home. Home markii aad tagtid waxa ka dooranaysaa copy. Click ayaa ku dhahayaa copy. Kadib waa soo tagayaa waxaad tagaysaa meeshaan click ku dhahaysaa enter dhaha ama meesha aan rabo ayaa tagayaa. Xariiqintan boodboodaysa waxa loo yaqaanaa kasar. Waana position-ka aan taaganahay oo hadda wax aan ku dari karo dokumentiga kana tiri karo. Marka calaamadan boodboodaysa ayaa waxaan dhigan doonaa kasarkan ayaa waxaan dhigan doonaa meesha aan rabo inaan qoraalkayga ku baasti gareeyo ku badiyo oo dhigo copy-ga aan soo qaatay. Markaas waxa ku laabanaysaa home ayaa ku laabanaysaa waxa ka sii dooranaysaa paste. Paste markii aad dhaho sadarkayga sadar lamid ah ayaa ii sameysmay. Waxaan ka soo koobiyay sadarkan kore waxaana dhigay hoos. Waa habka koobaad ee loo isticmaali karo copy and paste. Waxaase jira hab kaleeto oo loo isticmaalo copy and paste. Haddaba waa noocee habkaas waxa waaye hadda tusaalahan sadarka qayb kamid ah ayaa soo koobiyeysanayna. Kala bar ayaa ku simay si aan u fahanno tii hore ee kan waxay ku kala duwan yihiin. Marka aad qoraalkaaga qayb kamid ah marka aad select saaratid waxa dhahaysaa right click ayaa ku kordhaysaa qoraalkaaga. Qaybta select ku saaran adiga oo dul taagan ayaa right click ku dhahaysaa. Kadib waxa ka dooranaysaa copy. Copy ayaa click ku dhahaysaa. Kadib waxa hoos u soo soconaysaa meesha aad rabto qoraalkaaga inaad dhigtid ayaa waxa geesanaysaa beleglahan boodboodayo kasarka ayaa dhigaysaa. Marka aad dhigtid ayaa waxa ku dhahaysaa right click. Right click markii aad dhahayd paste ayaa ka dooranaysaa. Inta maxay u qoran paste options ma jeedaa? Paste ayaa ka dooranaa. Hadda maxay soo baxay qoraalkayga leenkayga qayb kamid ah ayaa select soo saartay waana soo koobiyeystay inta ayaan soo dhigtay. Waa simple. Waa habka labaad ee loo isticmaalo copy and paste. Balse waxaa jira hab saddexaad oo ah habka ugu fudud oo loo isticmaalo copy and paste aan isla aragno. Habka saddexaad waxa waaye inaan qoraalkaaga qayb kamid ah ama qoraalkaaga dhan inaad select saaratid inta aad rabtid inaad koobiyeysid. Hadda anaga half ayaa haddana ka tagaynaa si aan u ogaano inaan qayb ka tagnay. Select ayaa saaranaysaa qayb kamid ah qoraalkaaga. Marka aad select saaratid waxa ku laabanaysaa keyboardkaaga control ctrl badhanka ay ku qoran tahay keyboardkaaga ayaa riixaysaa. Waxa loo yaqaanaa control. Adiga oo haysid ayaa waxa dooranaysaa c. Xarafka c keyboardkaaga ka raadi hal mar taabo. Marka aad taabatid macnaheedu maxaa waaye control c waxay u taagan tahay control copy. Copy sida copy ayay u taagan tahay. Markii aad copy aad doorato oo control c aad hayd ayaa waxa soo qaadanaysaa kansarkaaga. Click ayaa dhaysa ayaa waxa tagaysaa meesha aad rabtid inaad dhigatid qoraalkaaga. Markii aad tagtid isla waxa ku laabanaysaa keyboardkaaga control ayaa qabanaysaa v ayaa taabanaysaa oo u taagan paste. V waxay u taagan tahay paste. C-dan waxay u taagan tahay copy. Hadda maxaa isla aragnay inaad c soo dhahay qaybtan sare inaan soo doortay oo control c soo dhahay. Dabadeed inaan imid qaybtan hoose oo ku dhahay control v oo u taagan paste. Waxaan filayaa inaad ila fahanteen oo aad si fudud ku isticmaali kartaan insha Allah taala. Inta casharka xiga ku kulmi doono waxa idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.